ururka kubadda cagta ee Konefi ay ku buuxabeen wadamada aan la aqoonsan adduunka ayaa warbixin maalintii shalay soo saareen waxay ku sheegeen in aan suurtagal ahayn in Soomaaliland ay martigeliso koobka wadamada aan la aqoonsan oo hore xukuumadda Soomaaliland u shaacisay in martigelinayso sanadka soo socda. Haddaba arrintaas ayaa waxa maanta ka hadlay xisbiga mucaaradka ee gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbigaasi Muwarig Axmed Maxamed oo qaar kamid ah warbaahinta kula hadlay xarunta xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in waqti xaadirkan haboon tahay in guud ahaan mas'uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda ciyaaruhu ay iscasilaan kadib sida uu sheegay markii ay ku fashilmeen shaqooyinkii ay gumatay ummaddu. Khadar iyo Cabdiraxmaan baad baa mahadsantiin. Arrinkan horaan uga hadalay dhowr 4 bilood ka hor markii la shaaciyay amba la sheegay in Soomaaliland ay barnaamijkan ay martigelin doonto 2020ka maalinta markaan ka hadlaynay si caafimaad qabtaan u hadlaynay oo ka turjumaysa xaqiiqada wadankeena ka jirta iyo suurtagalnimada ay sida ay wax noqonayaan horena waan u sheego Soomaaliland bay ka jirtaa in la isku sheego wax aan suurtagal ahayn mas'uuliyiintu dadkooda ay ku maaweeliyaan 30 sanadood wixii aanu ka hadlaynay aanu ka digaynay ayaa maantana ay xiriirka Konefi ay soo sheegeen waxaanu ka hadlaynay in ay arrinkaas suurtagal ahayn marka loo eego duruufaha aynu ku suganahay iyo waxa laga rabo in magaranaysa ay koobkaasi u suurtagalo requirement-ka laga rabo in laga helo horaan ugu hadlo waxaan idhi dadkaasi markay noo yimaadaan waxyaabaha ugu horeeyay ka hadli doonaan waa wadooyinkeena ila dadka diyaaradu uga soo qaaday dariiqaas ay soo marayaan guud ahaan way isku wada qaadeen waxa sheegeen in arrimo ma garanaysa ay arrimaha la xiriira hadii ay tahay shuruudihii laga soo bixin hadii ay tahay garoon la'aan hadii ay tahay dhakhtar la'aan hadii ay tahay waxaas way isku wada dareen way sheegeen in aan arrinkaas suurtagal ahayn marka waxa leeyahay arrintani hadda ay ku dhawaaqeen oo hore u jiro wasaaradda ciyaaraha iyo sidoo kale xukuumadda ay iska indhatireen horta Soomaaliland arrinkan uu ku badan yahay indhatirku waxa weeyaan marka xisaabta mucaaradku ay runta wax ka sheegaan ay wax soo gudbiyaan xukuumadda iyo wasaaradda hawsha leh waxa qurux badan in ay wixii xaqiiqada ku dhaqanto wasaaraddu indhaha iska soo riday amba si bareer ah ayay u taageeraysay inay waxan suurtagelin karto ayadoo ay og tahay xaqiiqada rasmiga dadka qaar falanqeeya xaaladda ciyaaraha Soomaaliland waxay sheegaan wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada mas'uuliyiinta hadda ay gacanta ku haysan in mas'uuliyiintii loo baahnaa loogu talagalay inay maamulaan wasaaradda inuu ka xisbi ahaan arrintaas mid muuqato anaga waxa noo muuqata dadka noo muuqata wax weeyaan mid maxaa ugu dambeeyay ka la siisiyo weeyo inaanay kartideedii lahayn oo awoodeedii lahayn oo aqoonteedii lahayn waxa ugu dambeeyay ka imika adduunyadiina ogaatay oo waxa weeye koobkan faa'iidooyin badan buu lahaa waxa weeyaan social faa'iido u lahaa oo inagu arrimaheena inta badan aqoonsi baan ku xidhnaa laakiin isdhexgalka bulshada wax weyn buu ka tari lahaa oo wadamo badan oo la aqoonsan laakiin wax qabad wanaagsan wadamo la aqoonsaday marka bulshooyinka inay isdhexgalaan in layna ogaado waxaan hayno oo dadku inoo imaadaan in kalsooni layna u qabo faa'iidooyin badan noocaas u lahaa laakiin mas'uuliyiinta wasaaraddu way ku guuldareysteen arrinka inay ay sideedu uga soo baxaan waana maanta hal jaanis baa u yaalo inay bulshadii ku soo celiyaan oo yiraahdaan waxba waan idin qaban kari weynee xalka qaata position ka hayayna dadka ay u banayaan waxa haboon iscasilaan mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha waxaan u soo jeedin lahaa tii gudaha way ku guuldareysteen oo wada haysan arrimaheena sportska gudaha iyo qaab dhismeedkooda iyo noloshooda ay ku sugan yihiin tii adduunyaduna maanta sida ay noqotay iyo failure-ka ay kala kulmeen wada arkaysaa barnaamijkan ku yar ciidan wasiirka qurada ugu baaqasayeen oo xilka wasiirnimo baneeyo mise guud ahaan maamulka wasaaradda waxa weeye mas'uuliyadda waana la wada leeyahay waana la kala leeyahay mas'uuliyaddu meel bay ka bilaabmataa meelna ku dhamaataa cidii ay hawshan oo dhami hoos imanaysay diida wasiirku isaga wasaaradda ugu sareeya iyo hadii ay tahay xiriirka sportska fudud ninka haysta agaasimaha ka ah mas'uuliyadda cidii ay koobsanayso oo dhan hawshan ku guul daraystay ayaan u soo jeedin lahaa in ay meeshan
baneeyaan. iyo hadda waxay noo kala saartay mas'uuliyiinta ugu sareysa nooc arbaabi kartaa ujeedada inay xilka baneeyaan. mas-uuliyaddu waxa weeye sidan idhi meel loo ka bilaabmaysaa meel loo ku dhamaanaysaa. marka ciddii hawshan oo dhan ka shaqaynaysay ee ku hawlanayd haddii wasiirtahay haddii ay agaasimo tahay iyo haddii ay agaasimo waxay tahayba ciddii mas-uuliyaddan loo igmaday waxa weeye way ku guuldareysteen waa inay meesha iskaga baneeyaan. dhacdadan hadda dhacday warbixintan ay soo saareen ururka Konefa wasaaradii weli kama hadal xukuumaduna kama hadal arrintaasi maxay u muuqataa waad kulata de maxay ka hadli khadaro waxa weeye nin hawshii uu intaas oo dhan waxa weeyaan si bareer ah dhacadkaan ah bulshada ugu soo celcelinaya maanta hadalba uma yaalo hadalka u furan waxa weeye inay ka hadlaan wax kale maaha inay yiraahdaan shaqadii waan banaynay oo cid kale oo sportskeeni wax ka qabato oo si qurux badan uga shaqeysa ay u baneeyaan Janiska. وخضر إسماعيل محمد خضر دمبال يا عبد الرحمن قعيرة وركم قبهية عالم قبض عستون فور تي في هرقيسة.